soo dhow saaxiibkay waa masaaxiibadeyda marka hore waan kaaga mahadcelinayaa maadaama aad muuqaal kusoo dhifatay. Waxaan waday muuqaalo taxan ah oo aan ku eegay dadka caanka ah imise lacag ayay bishii ka sameeyaan YouTube-ka. Waxaan hore uga hadalnay Asda Xaajiyo iyo Sharma Boy. Haddaadan hore u daawan qaybta kore muuqaalkan ka daawo. Maanta muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa Maxamed Qadar bishii imise lacag ayuu ka sameeyaa YouTube-ka. Ma aaminaysaa haddaan ku dhaho Maxamed Qadar wuxuu ka lacag badan yahay xitaa Asda Xaajiyo oo ah qof ugu subscribe badan Soomaalida. Muuqaalkan ayaan ku ogaan doonaa. Muuqaalkan waxaan kusoo dhex dari doonaa laba lambar oo xagga kore ka soo muuqan doona. Challenge waa qofkii labada lambar soo hela commentiga igu soo qoro muuqaalka uu jecel yahay inaan u sameeyo commentiga ha igu reebo. Waxaan u sameyn doonaa muuqaalkan muuqaalka xiga qofkii ku guuleysto. Waa haddii aad labada lambar aan sheegayo aad soo hesho. Labada lambar waxay ka soo muuqan doonaan qaybtan kore 5 daqiiqo u horeysa. Daqiiqada koobaad ilaa daqiiqada shanaad waa idin soo koobay fadlan 5 daqiiqo u horeysa ha isdhaafin. Waxaan codsigiisa u sameyn doonaa qofka commentigiisa ugu soo horeeyo. Intaan muuqaal guda galin codsi ayaan wataa. Muuqaalka like ii saarto channelkan subscribe dhahdo. 5 sekin ayaan ku siinayaa. mahadsanid maadaama aad codsiga ii tixgelisay aan bilowno muuqaalkeena. Hadda waxaan soo furanay website-kan ku ogaan lahayn lacagta uu Maxamed Qadar ka sameeyay bishii. website-kan waxaa la yiraahdaa View Stats, yani waa website ku qiyaasaya youtuberada inta ay lacag ka sameeyaan sida saxda boqolkiiba boqol ma, laakiin waa soo dhaweyn qiyaas ahaan. waxaan eegnaa Maxamed Qadar intaan aqoon waa wareey ciyaareed midka ugu fiican waqti xaadirkan hadda la taagan yahay, uguna maxaa la dhahayeen ugu shacbiyad badan dhalinyaradana ay aad u jecel yihiin. Maxamed Qadar page-kiisa total waka. Maxamed Qadar wuxuu soo upload gareeyay 6611 video ayuu soo upload gareeyay. maasha Allah ma yareysanay, waa nin kaliya youtuber kaliya ee wax xaqiiq ah ka hadla oo maalintii 3 muuqaal soo dhiga. waa shaqo aad u adag. subscribe wuxuu haystaa 1,570,000. total views wuxuu haystaa 354,398,265 jeer ayaa muuqaaladu soo dhigay channelkiisa la daawaday wey. xaggan hoose daawo baxno, xaggan waxaan ku haysanaa 3 daaqo. haddaan wada eegno tan waa viewska. xaggan waxaan ku arkaysaa last 28 days, xaggana sidoo kale last 28 days, xaggana last 28 days. marka xaggan waa viewska uu helay 28 maalin u dambeysay. xaggana waa subscribe uu helay 28 maalin u dambeysay. xaggana waa lacagta uu helay 28 maalin u dambeysay. marka haddaan xaggan ka soo bilowno, xaggan haddaan qaybtan viewska haddaan ka bilowno wuxuu qiyaasayaa 8 milyan oo jeer in la daawaday muuqaaladiisa uu soo gudbiyay. xaggana subscribe in bishii lasoo dhaafay ay kusoo biireen 30,000 oo subscribe. maasha Allah. lacagta marka wax ugu muhiimsan waa lacagtan hadda uu qiyaasay waa bishii hadda lasoo dhaafay wuxuu sheegayaa 21,000 ilaa 60,000 inta u dhaxaysa. maasha Allah, waa lacag aad u fara badan. marka 21,000 waxaa laga yaabaa in 21,000 uu qiyaasay ay noqoto ama 60,000 uu qiyaasay ay noqoto. qiyaas ahaan korona way noqon kartaa, laga yaabaa inuu ka sameeyo dhowr kun, 7, 8, 9, 10, 20. waa qiyaas ahaan, yani inta uu qiyaasay. xisaabta saxda boqolkiiba boqol ma aha, waa website. xisaabta saxda kaliya waxaa laga ogaan karaa waa qofka, yani maxaa lahayn YouTube-kiisa kaliya ayaa lagala socon karaa. marka asaga kaliya ayaa ogaan kara, laakiin tan waa qiyaas ahaan sida uu soo dhaweynayo website-ka. marka hadda 28 maalin u dambeysay kaliya wuxuu qiyaasayaa 21,000. haddaan eegno 7 maalin u dambeysay waa just 1 week, isbuuc kaliya. haddaan eegno isbuucan kaliya wuxuu qiyaasayaa 4,000 ilaa 12,000, 4,500 ilaa 12,000. views isbuucan wuxuu helay 1.7 milyan. haddaan eegno 3 bil u dambeysay wuxuu helay 24 milyan oo views ah, 100,000. maasha Allah, 100k oo subscribe ayaa kusoo biiray. 63,000 ilaa 177,000 ayuu sheegay inuu ka sameeyay. waa 3 bil last 19 days, 90 maalin u dambeysay. sanadka marka haddaan dhahno sanadkii lasoo dhaafay waa 92 milyan oo jeer ayaa muuqaaladiisa la daawaday.
410,000 ku dhawaad half milyan ayaa sanadkii hadda lasoo dhaafay muddo hadda sanad laga joogo kusoo biiray. wuxuu qiyaasa 245,000 ilaa 680,000 lacag ku dhawaad amaba ka badan half milyan oo dollar ayuu qiyaasaya inuu ka sameeyey. talo YouTube haddii saa lacag badan laga sameyn karo mar rabo bilaabo lahaa, laakiin intaan waa iska kaftan. xaggan marka inta uu channelkan jiray inta lacag uu ka sameeyey ayuu qiyaasaya. intuu channelkan jiray sida xaggan kusoo aragnay wuxuu helay 354 milyan oo jeer ayaa la daawaday muuqaaladiisa marka la isku daro total. xagganna waa last year my all time ay raahday all time intuu channelkan jiray wuxuu helay 354 milyan. labada xisaab yani way iswaafaqayaan, labada xisaabtan oo ah last all time iyo xisaabtan oo ah total view 354 milyan 354 milyan. subscribe-ka marka wuxuu helay waa 1,570,000 oo subscribe. xagganna waa isleeyihiin waa aragtaa 1,500,000 xagganna waa 1,500,000 waa 1 milyan iyo bar. xaggan marka lacagta haddaan u nimaano lacagta wuxuu qiyaasayaa meesha ugu yar qiyaasta ugu yar uu soo qabtay waxaa weeye 938,000 oo dollar ilaa 2 milyan iyo bar 2 milyan iyo 600,000 inta u dhaxaysa inuu ka sameeyey. marka haddaan inta u yar kaliya aan kasoo qaadano 2 milyan haddaan iska dayno 938,000 haddaan kasoo qaadano talo macquul ma tahay Maxamed Qadar inuu ku dhawaad 1 milyan lacag ka sameeyey? kale hadduu ka sameeyey ilaah u barakay, hadduusan ka sameyna dee kale hadduu dadaalka hadda uu wado hadduu sii wado kale wuu ka sameyn karaa inta in ka badan. marka hadda waxaan isleeyahay muuqaalkan hadda wuxuu yaalaa 15 saac kaliya ayuu yaalaa, waa muuqaalka saaka uu soo dhigay. muuqaalkan haddaan fiirino inta lacag uu ka sameeyey wuxuu helay 58,000 oo jeer ayaa la daawaday, 12,000 oo like ayuu helay, 243 comments ayaa laga soo bixiyey. view per hour-na waa halkii sac waxaa la daawadaa 3,700,000 oo jeer ayaa la daawadaa halkii sac muuqaalkan. lacagtu ka sameeyay wuxuu qiyaasayaa 287 dollar maasha Allah. marka hadda waxaan eegaynaa muuqaalada channelkan ugu yani most popular videoska muuqaalada ugu daawashada badan inta lacag ay sameeyeen ayaan isla fiirin doonaa. qaybtan videoskan ku dhufanaynaa kadib waxaan kasii dooranaa waxaan isla eegaynaa most popular muuqaalada yani ugu daawashada badan inta lacag uu ka sameeyey all time muuqaaladu soo dhigay. muuqaalkan daawo BBC oo ka wareysatay Maxamed Qadar muuqaal isaga 6 sano ayuu ka hor way muuqaalkan uu soo dhigay. muuqaalkanna waa 7 sano ka hor, kanna waa 6 sano ka hor. marka muuqaalkan aan isla eegno muuqaalada ugu daawashada badan laga yaabo muuqaalo ka waqti badan inay jiraan. muuqaalka haddaan isla eegno muuqaalkan wuxuu helay 514,000 oo 514,000 oo jeer ayaa la daawaday, 2,400,000 oo dollar inuu ka sameeyay qiyaasaya. marka muuqaalka waa muuqaalka ugu daawashada badan ee channelka Maxamed Qadar yaala. 5 milyan jeer ayaa la daawaday, 2,400,000 inuu ka sameeyay. marka hadda waxaan eegi doonaa muuqaalka muuqaalada ugu waqtiga dheer ee channelka yaal oldest videos ayaan eegnaa. marka muuqaalka ayaa noo soo baxay 8 sano ka hor. Qadar oo tabinaya goolkii koowaad Suarez ee Atletico waa 8 sano ka hor. muuqaalkaasna waa 8 sano ka hor, kanna waa 7 sano ka hor. marka muuqaalkan ayaan eegnaa 8 sano waa muuqaalka ugu waqtiga dheer ee channelka Maxamed Qadar yaala. muuqaalkan wuxuu helay 50,000 oo daawasho ayuu helay, views ah 240 dollar inuu ka sameeyay maasha Allah ma xuma. marka YouTube horta lacag waa laga sameeyaa maasha Allah. intii ka sameysay Ilaah u barakay, inta hadda kadib ka sameyn doontana waxaan leeyahay bal dadaal waxa lagu kala tagay waa dadaal. Maxamed Qadar hadda waa YouTuberka kaliya subaxdii galabtii iyo habeenkiiba
muuqaalo soo gudbiya, xogta ugu dambeysa ciyaaraha ka hadla, wax kasta oo everything about sports. yacni qofka hadda maanta loogu tegi karo wararkiisa laisku haleyn karo waxaan dhihi karaa waa Maxamed Qadar. maxaa lahay waa anaga booska Maxamed Qadar hadda uu noo taagan yahay waa booska maxaa lahay ninkan hadda gaalada u taagan oo wararka sports inta badan kala iibsiyada ay aad uga dambeeyaan maxaa lahay magaciisa. anaga waa Fabrizio Romano ayuu noo yahay Maxamed Qadar. waxaan leeyahay dadaalka aad u dad maasha Allah, dadaal aad u badan. waxaana ka mid ah youtuberada ama shakhsiyaadka aadka ugu xiran muuqaalada la socda. marka muuqaalkan Maxamed Qadar inta ayaa kusoo koobaya. hadduu jiro shakhsi kale aad jeclaan lahayd inaan muuqaal ka soo sameeyo maxaa lahay qaybta commentiga igula wadaag. shakhsiga aad jeclaan lahayd inaan soo sameyn ka hor waxaan sheegay muuqaal bilowgiis aan ku sheegay. yacni haddii muuqaalkan hadda waxaa jiray 1 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo inta u dhaxaysa 2 lambar aan kusoo qoray, aan kusoo qariyay oo qaybta kore kasoo muuqanaysa video markaad daawanaysid qaybta kore kasoo muuqanaysa. marka 2 lambar haddaa heshay commenti igu soo qor muuqaalka xiga aad jeclaan lahayd adi ahaantada shakhsiyan igu sheeg oo dheh muuqaalka ayaan jeclahay iisoo samee. marka waxaan hadhow u eegi doona laga yaabo in dad badan ay soo qoraan commentiga ugu horeeyay ayaan maxaa lahay codsigiisa u tixgelin doonaa maadaama inta kale uu asaga ka soo horeeyay. tan intaa ku kulmi doona muuqaalka xiga oo anigu tusmeeyo waxaan idin leeyahay nabad ahaada.